runtii diinta iyo siyaasaddu diintu ma kala qaado. maxay siyaasad markii luqada carabiga lagu fasiro waxa waa maamul. haddii wax la maamulayana waxa ugu fiican in lagu maamulo kitaabka Ilaahay uu soo dejiyay oo islaamkan loogu talagalay in caalamka dhan wada gaaro. fikir gadaal inaga soo galay oo ayna wadankeena iyo ummadda islaamka ba ayna asal u lahayn oo qarbi oo banaankii looga yimid oo la yiraahdo fikirka kala saarida diinta iyo nolosha ayaa muddo xagga maamulka ayaa naga haystay. dadkii baraaruga ay sameeyeen waxa dib loo ogaaday waxan ba inuu yahay wax ummadii lagu baabi'inayo. haddii marka ummadda lagu maamulo sharciga Ilaahay sidoo uu yahay waana sifada mu'miniinta lagu yaqaan oo Ilaahay uu yiri inma kaana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun. wada kale u furan ma jirto dadka iimaanka leh ayay iimaanka arkaan iimaanka waxa kamid ah in la rumeeyo kitaabka intuumina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubi kutubtaas oo quraanka uu ku jiro quraankeena marka la akhriso marka ma kala saarayo diinta iyo nolosha ma kala saarayo. rasuul Ilaahay uu soo diray markay yimaadaan dadka inay saa u hagaajiyaan oo si guud waxa xagga maamulka ay kaga bilaabaan ay dhahaan war maamulkan hagaajiya ayaa in badan ku jirta. waxa rasuul Ilaahay ka hor imaan jiray quraanku inoo sheegayna waxay ahaayeen dadka markaas xagga madaxnimada haysta oo xooga isu weera aadan oo adduunyo ah ka yaaban hadii ay raacaan jidka xaq Ilaahay uu soo dejiyay inay waayaan. markaas waxay sameyn jireen dacaayada ah rasuulka ayuu ku dhahaya yuriidu an yatafaddala alayna wuxuu rabaa inuu naga sara maro ayuu rabaa yuriidu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi dhulkiisa dhulka inuu ka saaro ayuu rabaa. waxaas oo waxay ku cishanayaan si xaq darro ah oo ay dadka isaga dhigayaan inay ayagu xaq u leeyihiin inay maamulaan tii un baa marka waqtigan aan joogna jirto si saas loo gudbo marka ayaa khudbooyinka waxay ku salaysan yihiin fahamka ah in dadka muslimiinta ah kitaabkooda iyo sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam diintooda iyo noloshooda inaan la kala qaadaynin. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asaa kitaabkan uu ku soo degay sunnadan akhrinayay haddana asaga ay dadka maamulayay. markuu geeriyoodayna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu khulafaa raashidiintii ayaa ka sii dambeysay. marka haday kala saaran yihiin waxa ayna soo gaari lahayd taariikh kala saaran oo ah nabi iyo khulafaa raashidiinkiisii oo masaajidka dadka ku wacdiya oo umuurta nolosha iyo ku saabsan siyaasadda aan shaqo ku lahayn iyo dad ra'iisul wasaarayaal iyo madaxweynayaal ah oo markaas ayaga xukumayay. taasna ma ayna dhicin. mar hadayna dhicinna jidkii aan ka soo gaarnay nabi sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa oo ahaa in jidkaas Ilaahay uu soo dejiyay kitaabkiisa lagu socdo ka ayaa marka ay khudbooyinkayga iyo siyaasadda san warka ku saabsantay. midda Soomaaliya ka jirtay sida ay tahay waxaan u arkaa inay tahay ummad ayaan darro ay ku dhacday oo ay dadkii hoggaanka fiican u noqon lahaa ay ka maqan yihiin saaxadii hoggaanka la isku eriyanayo dad laga yaabo ama dana gaar ah ama waxyaabo aan wax weyn ahayn inay ka hormarinayaan wixii muddo dheerna dhibaato lagu soo jiray burburkii iyo dagaaladii iyo wixii dhacayna kalsooni darro ay abuureen. qofkii asagoo laga yaabo inuu wanaag iyo khayr xataa wado inaan lagu simeynin wanaag iyo khayrkii waxa inoo fudud marka khilaafaadka iyo isku hor imaanshaha deganaanshaha iyo wada hadalka iyo isfahamkuna uu ugu yar yahay. marka waa siyaasad sidaas ah waxa uu isbedela magacyo iyo umba isku bedela waxa rabaa inay isbedelaan dadka si u fikrayaan in la bedelo sida quraanka Ilaahay uu yiri inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. marka shacbiga Soomaaliyeed naftiisa waxa ku jira iyo fahamka uu ka fahamsan yahay dawladnimadka iyo qabiilkan loogu talagalay in la isku aqoonsado ee aan loogu talagalin in la isugu eexdo ama la isku dulmiyo fahamkaas guracan ama khaldamay ayaa horey inoo soo baabiyay ilaa hadan ummadii ay dabada sii haysaa. taas markii laga gudbo oo shacabku fikir ay la yimaadaan ah qofka hoggaanka u noqonaya in ay ku dooranayaan waxqabadkiisa aqoontiisa ayna ku dooranaynin abtirkiisa. marka dad waxay rabaan inay dadku u abtiriyaan oo ay wax ku doortaan abtirka waxa loogu talagalay wax la shaqaystay ma aha in la isku aqoonsado reehibel iyo reehibel isa ahaada laakiin ummadnimadu wuxuu keenayaa in la isku darsado waa la tijaabiyo inta isku reerka haday dhinac isugu baxaan ayaga ayaa dib isu laayay. marka si qolo walba ay u liibaanto inay qolada kale u soo cararto oo dadka isku wada darmadaan oo markaasi waxa la isla leeyahay oo ummadnimo ay ka muuqato in lagu socdo ayaa fiican. laakiin inta siyaasaddu ay saan u socoto oo bayska waxa looga dhigayo oo wax khaldan uu yahay wax khaldan buu soo saaraa. waxa sheegtay habka wax lagu siyaasadda Soomaaliya ku salaysan tahay in maanta sharciga waafaqsanayn nidaam waxaa jira 4.5 la dhaho oo dalka maanta lagu dhaqo nidaamkaasi in dadna la yiraahdo sharciga dadna طبعا nidaamkaasi wuxuu soo bilowday 2000 markii dib Soomaali in wax loogu aasaasay la rabay maadaama
axzaab sida caalamka tartanta oo ku tartanta barnaamijyo ay ummadda u qabanayaan ayna dadku isugu xirnayn waxaa dadkan si wax loogu qaybiyaa wax kale oo wax loogu qaybiyaa la garan waayey waxaa la yidhi saas ha loogu qaybiyo saa u qaybintii inay khalad tahay oo dadka yani cid kala sarraysa ma jiro dadku waa isku mid laakiin haddana yani habka soomaalidu ah reeruhu way kala badan yihiin iyo ayadoon tirakoob sax aan la samaynin oo cid tirisay ma jirin ayaa la iska qiyaasay markaas waxaa la Soomaali markii la isku dardaro say noqonaysaa markaas waxaa la 4 beelood iyo beel kale oo ayagu yani hal abtir aan wada lahayn oo yani la isku dardaraayo yani intaasna qayb hal isaga dhigo taas marka waxay keentay 4.5 marka hadda macnaheedu yani qof ayaa qof ka fiican ma aha markii la sameeyay markii war maxaa saan loo yeelayna in badan oo kamid waxay yiraahdeen waxaan xaq ma aha waa xal saanan u aragnaa waxaan xaq ahayn xal ma noqdo laakiin haddana saan bay Soomaalidii ayay ka dhigeen dhibta ka dhacday iyo ilaa haddana waa laga bixilayay yani 20 sano ayaa kor loo dhaafay system 4.5 lahayd in wax lagu qaybiyo ilaa haddana uu caga dhigan laayahay marka waxay ku tusaysaa yani sida wax loo sameeyay yani halaga maarmi waayo markaas wax kale oo loogu sameeyay hala garan waayo laakiin haddana yani mar hadduusan xaq ahayn xalkii laguma gaarin حتى هدي اللي هذا عدالة يحكوا سابسن أفرت بيلود مركي لا فيريو هل حبوا كم هدي السوق هذا أو مدين ناس وكلا قاضي مدول مركي اللي هذا عدالة مكوها شان والله ما أنت بهاي عدالة مكوها اللي موجود أفرت حتى وين كلا قد جاي اللي يديك أفر وين اللي هذا أنت كلا رسكو دردرينا قيب أي كيهم هدي اللي هذا مدين الله سوق هذا خير هبلو مثلا لمبركو كسوقات يديك لمبركو أنتي وضلا هيد قبائل كلا سوق دردري هيد جفوين كهيد si siman ma u qaybsateen waxa soo baxaysa maya kuwana wax badan ay qaateen kuwa wax yar ay qaateen kuwana wax laba siinin marka ama afarta mid kamid ah ahaado ama qaybtan isku dardaray ee 5 ka ha ahaato cadaaladii ummadda Soomaaliyeed ay ku qaboobi lahayd meel kaas way ka maqan tahay marka hadii cadaalad la helo yani wax walba hagaagayaan hadii cadaalad la waayana si kasta oo loo badiyo hadda waxa Soomaali mushkilad ka haysata hadii golo wasiirada la dhisi leeyahay yani qolo walba aan iska aragnay dhahayaan markaas caalamka ugu dhaqaalaha badan wuxuu wasiir ka dhigin tirada ayaa dadkaas masaakiinta ay waxba haysan ya wasiiradii lagu badinaa ilaa 100 ay ku dhawaadaan maxaa loo leeyahay waxa leeyahay bahalkaas qolo walba iska aragto marka qolaha iska aragto xal kuma noqdee cadaalad ma la sameeyay ayuu xalka noqonaya marka cadaaladii 100 qof haday isu yimaadaan cadaalad ay sameeynin waxa ka fiican 5 qof oo isu imaatay oo cadaalad sameeynaysa marka manhajiyada ama bayska ama aasaaska lagu socdo ayaa khaldan wixii marka maalin walba meel ayuu ka qarxaa dibkaas ayaa in haysta waxaad sheegtay in siyaasadda iyo diintu aysan kala maarmin waxay ka mid tahay culimada farakutiriska ee arrimaha siyaasadda diinta ku dabaqa arrintaasi mis leedahay waa door ay culimadii kale ka jirteen intooda badan طبعا waxa laga yaabaa habka soo gudbintu baa lagu kala duwan yahay Soomaali oo dhan yani culimadoodu way aaminsan yihiin inayna kala ahayn diinta iyo maamulka laakiin hab dhaqanka ummadda ay u samaysan tahay ya qaarkood intay fiiriyeen waxayna kuwa wax lagu darsan karo ma aha intii laga fogaan karo aan ka fogaan taas waxay keenay marka culimo badan in ayna ka hadlin farahan isaa qaadeen taas oo dhici karta inay tahay malaha way ka qoosteen in ay meeshan wax ka soo baxaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay inaan la quusanin lagu celceliyo la wado maxay waxaan waa manhajkii laga soo gaaray dadkii diinta laga soo gaaray oo muslimiintii hore ahaa imaam Maalik wuxuu yiri ummadan bilowgeed waxay ku hagaagtay bay aakhirkeedana ku hagaagaysaa kuma hagaagayso wax awalkii aan laga soo gaarin marka awalkii sidoo ahaa waxay ahayd maamulka iyo diintu way wada socdeen marka culimada yani oo arkaysa in yani ay kala duwan yihiin waxaan dhihi lahaa yani wax hadda muuqdo oo qof ka soo horjeestay ma jiro laakiin habka gudbinta iyo waxa laga yaabaa fahamka xaaladda markaas la fahamsan yahay in lagu kala duwan yahay marka waa tala u baahan in culimada dib isugu noqdaan oo ummadda ay u sheegaan fahamka saxiixa islaamku inuu yahay faham dhammaystiran oo meelna aan dhaafaynin sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri ittaqillaha haythu ma kunta sida ilaahay quraankiisu uu ku yiri ala lahu al-khalqu wal amru ilaahay baa abuurka iskala dadka abuurtay inuu amar siiyo oo waxna u xalaaleeyo waxna ka xaraantinimeeyana ilaahay baa xaq u leh bil aadam haduu jaga soo sharxana waa jaga dadku ay yani ayna lahayn xaq u lahayn oo ilaahay uu yiri wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi al-kadhib yani tahlil iyo tahrim ilaahay baa iskale marka meel lagu kala qaadi karo ma jirto culimada duruufta ay ama ka celisay ama si u arkayna in loo cudur daaro oo la baraarujiyo oo la yiraahdo diinta markaanu akhrino kuma jirto ayay u baahan yihiin dabcan markii la yiraahdo dhibaatada inagu dhacday weynankeedana doorkii culimada laga rabay yani waxa la dhihi karaa gaabis uu ku jiraa
وادونا gaabis ku jirin saanba lama noqdeen laakiin saan in lagu yahay waxay ku tusaysaa in ama la caajisay ama hawsha in la qabto la rabay ama si wada jir loo qabto la rabay in aan loo qabanin marka waa gaab meeshaas ku jira oo u baahan in la iska wareysto si ummadda Soomaaliyeed diinteeda iyo dalkeeda loogu ilaaliyo